السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجكا مانتا برنامجكاسو كسابسن حديد كمدا حديدة الصوماليات سوياليت iyo ama lala lahaa ama dhex maray kaasoo aan ku soo qaadan doono oo ku taaban doono dhacda siyaasadeed oo sooyaaleed oo dhex martay Soomaaliya iyo Suudaan. saan barnaamij horeba ku dulmaray oo macnihii wax ka taabtay xiriirka Soomaaliya iyo Afrika uu ahaan jiray had iyo jeer xiriirkaasu mid u janjeera markay noqoto Soomaaliya iyo Itoobiya uu janjeeri jiray dhanka Itoobiya, taasoo dowlado badan oo Afrikaana ay macnihii la safan jireen ama naga soo dhaweysan jireen Itoobiya markay noqoto Soomaaliya. arrinkaasna uu ka dambeeyay iyadoo xaruntii ururka midnimada Afrika uu magaalo madaxda Addis Ababa xarun ka dhigtay, kadibna Itoobiya ay gacanta ku dhigtay ururkaas isaga ah. dhacdada tan maanta waa dhacdo sooyaaleed oo ku saabsan ka qaybgalkii ee Soomaaliya ka qayb gashay ururka Jaamacadda Carabta, kaasoo aan ku biirnay 1974 isla markaasna ay Soomaaliya kala kulantay markii ay xubinnimadeeda macnihii codsanaysay iyo ka qaybgalka iyo ku biiridda inay ururkaas isaga ee Jaamacadda Carabta ka mid noqoto. in halkaas shirweynihii isaga ahaa ee lagu soo dhaweeyay, lagu maamuusay, lagu aqbalay, lagu oggolaaday Soomaaliya inay xubin ka noqoto, uu macnihii halkaa ka hadlay wasiirkii arrimaha dibadda ee Suudaan oo la oran jiray Dr. Mansuur oo run ahaantii ahaa rugcaddaa siyaasadeed oo nin aad u aqoon-yahan sare ah, isla mar ahaantaasna qoraa ah, ayaa hor istaagay oo macnihii muujiyey diidmo ah in Soomaaliya ku soo biirto ururka Jaamacadda Carabta. Soomaaliya xilligaas isaga ah waxaa wasiir arrimo dibadeed u ahaa mudane Cumar Carte Qaalib, halka aan tilmaamay Suudaanna inuu wasiir arrimo dibadeed u ahaa Dr. Mansuur Khalid. Dr. Mansuur Khalid run ahaantii arrin aan laga filayn ayuu goobtaas iyada ka muujiyey, isaga iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Lubnaan, kuwaasoo muujiyey macnihii muuqaal diidmo ah iyo in Soomaaliya ay ku soo biirto Jaamacadda Carabta. nuxurka hadalkooduna ahaa inaan Soomaaliya ahayn dal carbeed, balse uu halkaas dood dheer ka galay wasiirkani arrimaha dibadda Cumar Carte Qaalib oo gunaanadkiina ku qanciyey xubnihii ururka Jaamacadda Carabta in Soomaaliya la oggolaado xubinnimadeeda iyo ku soo biiriddeeda ururka Jaamacadda Carabta, oo si mugle oo runtii aad u hufan oo soo dhaweyn leh Soomaaliya codsigii isaga ahaa looga aqbalay. balse run ahaantii ay ku noqotay filanwaa Soomaaliya in dal la mid ah
oo ku yaalla bariga Afrika oo ka tirsan maanta geeska Afrika oo run ahaantiina Soomaaliya xiriir wanaagsan ahaayeen oo dal Afrikaan ah oo aan duruuf badan iyo muuqaallo badan aan wadaagno oo ah Suudaan inuu hor istaago kusoo biiridayadii jaamacadda carabta ay isweydiintu leedahay dalka Lubnaan isaga waaba garanay xiriir qoto dheer leh oo saasa ma lihin balse Suudaan saan tilmaamay arrimo badan baa inaga dhaxeeya filan waagaas isaga markaan qeexo waxaan oran karaa in Dr. Mansuur Khalid diidmadiisu salka ku haysay inuu cuskanayay in Soomaaliya macnihii dhaqan carbeed aanay lahayn dhaqanka carbeed aanay lahaynna waxaa laga wadaa waa bulsho aan ku hadlin afka carbeed isla marka loo barbardhigo arrinkaas isaga dalka Suudaan xilligaas isaga 1974 waxaa la oran karaa in Suudaan laftiisu la carabeeyey balse Suudaan badan aanay ku hadli jirin afka carabiga taa waxaa dheer in luqadda carbeed xilligaas isaga aanay ahaan jirin saan tilmaamay luqadda kaliya ee dalka Suudaan aanayna ahayn luqadda koowaad ee bulshada Suudaan oo markaad u fiirsatid gobol kastoo Suudaan ka mid ah in lagaga hadli jiray luqad gaar ah Afrikaan ah oon shaqo ku lahayn carabiga balse luqadda carbeed ee ahaan jirtay luqad midnimo oo common oo isu keeni jirtay Suudaanta arrinkaas isaga waqti aan saas u dheereen laga hirgeliyey Suudaan gaar ahaan arrinkaas isaga ee carabeynta la hirgeliyey wixii ka dambeeyey 1956 oo sanadkii dalka Suudaan xornimada ama gobernimada qaatay oo iyaga iyo Masar ay kala baxeen taasoo wixii xilligaas isaga Masar iyo Ingiriis iyo Turkiba intaasoo dhan ay soo mareen oo Masar oo Suudaan macnihii gumaysan jireen saan tilmaamay dalka Suudaan waa dal macnihii la carabeeyey marka Dr. Khalid Mansuur waxay ka ahayd saan tilmaamay inaanay Soomaalidu af carabiga adeegsan intaasna ay u dheer tahay aanay ka soo jeedin isir carbeed arrinkaasuna marka loo fiirsado iskaba dhaaf Suudaane xitaa carabta isku tilmaamta carabta aan la oran karin inay ka soo jeedaan hal isir tusaale haddaan soo qaadano dalka Masar waxaan oran karnaa inuu caraboobay wixii ka dambeeyey furdii ama xilliga lagu magacaabo fatxigii islaamka ee Masar oo qarnigii toddobaad iyo geeridii Nabi Maxamed naxariis korkii ahaatee kadib wixii ka horeeyey Masar aanu ahayn dal carbeed oo ahaan jiray dal Afrikaan oo la carabeyn luqadaha iyo dhaqamada iyo qaybaha bulshada ka jirayna ay ka mid ahaayeen Noobiyiinta iyo Masaaridii hore oo lagu tilmaamo faraacinta iyagoo loo ismeynayo boqoradii meesha xukumi jiray iyo dadyow ka soo jeeda waqooyiga Afrika
وأرنكاس السجاء أي كلام إذا إسنايين دد يوجا كنا الوقوي أفريقيا وأن هالكا كوضو معنيه قيب كم إذا بربر كا مصاردا قيب كم إذا مصاردا كسوتشيدا بربرك marka saas awgeed halka laga akhrisan karo inuu Masar yahay dal different ethnic iyo qurumo ah kadibna caraboobay ama la carabay arrinkaasuna xitaa wuxuu ka jiraa oo saameeya dalalka waqooyiga Afrika ay ka mid yihiin Libya, Tunis, Algeria, Morocco gaar ahaan afarta la gaaro Mauritania sidoo kale marka loo fiirsado dalalka Iraq iyo Syria iyo Lebanon oo la oran karo iyagana waa dalal la carabeeyay oo different nation iyo isiro kala duwan oo kala dhaqama kala diimaa kala luqada ah ay ku bahoobeen gaar ahaan carabnimada waxaa dalalka ka hirgeliyay laba urur oo ku midooba hal urur oo la yiraahdo Xisbul Bacth Al-Carabi Al-Ishtiraki oo kala xukuma Suuriya iyo Iraq dalal carbeed oo kalena ka jira ay ka mid yihiin Falastiin, Lebanon, Urdun, Yemen soo gaara arrinka isirka iyo tafatirkiisu daawada run ahaantii waa mid dheer qeexidiisu falanqeyn badan u baahan balse gunaanadkii intaasaan kusoo koobayaa muuqaaladaasoo muujinaya in arrinka carabnimadu ay tahay mid la kasbaday balse aanay dhalasho ahayn horudhaci iyo marka hore qaabkaas isaga ana uu arrinkaasu Suudaan oo aan soo qaadanay ka bilownay falanqaynteena u saameeyo balse Soomaaliya waxa lagu soo dhaweynayay arrinku intaas carabnimo wuu ka weyna waana muuqaal fiican buu ahaa waana ku habbooneed in arrinkaa ka weyn lagu soo dhaweeyo oo ah in dano dhaqaale siyaasadeed ciidan arrimo bulsho annaga iyo carabta ay naga dhaxayso gaar ahaan carabta koonfurta jasiiradda carbeed ay ugu horeeyaan Yemen iyo gacanka khaliishka carbeed ama gacanka waan xidhiidh dhaqaale iyo arrimo bulshada aan la leenahay iyo dano siyaasadeed arrimahaasuna ay ka mudan yihiin ka weyn yihiin ka muhiimsan yihiin arrinka isirka arrinka isirkuna aanu ahayn wax meel taagan balse uu yahay macnihii wax ballac weyn oo la gaari karin oo isirku aan la qeexi karin macnihii muuqaalkiis balse halka ummad ama halka shacab ee shacab lagu tilmaamo ama ummad aan laga waayin dadyow kala nooca dhalashadooda iyo meelahay soo yaal ahaan taariikh ahaan ka soo jeedeen balse gunaanadkii ay dadkaasu noqdaan hal isir oo isku milme muuqaalka adduunku dhanka arrimaha bulshada u shaqeeya u hirgalaana waa muuqaalkaas isaga ah balse haddaad u fiirsatid dal kasta ama nation kasta ummad kasta DNA-geeda waxaa laga akhrisan karaa in isiro kala duwan halkaas laga milicsado oo laga helo oo ay ka soo baxaan waanu jirin isir xul ah
gunaanadkii doctor mansuur khaalid wasiirkii arrimaha dibadda ee suudaan ujeeddadiisu waxay ahayd wax afrikaan dhab ah annagaa kaga jirna jaamacadda carabta muuqaal dalweennana juqraafig ahaanna waa nahay saas awgeed annagee ku habboon tahay inaan si gaar ah iyo si keli ah u maalno dalalka carabta oo afrikaannimo annaga naga baxsan halkaas aanay ka hirgelin oo aan laga helin arrinkuna ahaa saluuguu saluugsan yahay in soomaaliya sababahaas darteed ugu soo biirto jaamacadda carabta gunaanadkiina halkaas uu ku ceeboobay soomaaliyana ay ka mid noqotay jaamacaddii carabta arrinkaas iyo dhacdadaasna aynu ka akhrisan karno in danaha dowladuhu isdiidaan oo dano awgeed laysku naco lagu kala fogaado oo danahaagiina loo hor istaago iyadoo wax haba yaraatee xumaan ah ama arrimo la taaban karo guracan ay dalalka soomaaliya iyo suudaan ka dhex jiri jirtay xilligaas isaga ah ama xilligay noqotoba ha noqotee oo guud ahaanu xidhiirka labadaa dal soomaaliya iyo suudaan ahaan jiray mid aada u fiican oo aada u sarreeya daawada dhegayste waa anigoo ah khaalid xasan yuusuf intaan ku kulmi doonno barnaamij kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu